بسم الله الرحمن الرحيم haddii aad rabto in aad kor u qaaddo aqoontaada iyo xirfadaada waxa lagama maarmaana in aad si joogto ah u qaadato koorasyo ka baxsan kuwa lagu barto jaamacadda ama dugsiga haddaba si aynu baahida u daboolno waxa aynu bil walba halkan YouTube channelkeena aynu soo gelinaa koorasyo bilaasha oo loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan ardayda ku kala nool daafaha caalamka koorasyadaas sida qofkii inala socday uu garanayo waxa laga qaataa jaamacadaha dunida kuwa ugu sareeya walibana waxa ay ku baxaan qof waliba sida uga faa'iideysto luqadda carabiga iyo luqadda ingiriishka waxbarashadooduna waa bilaash shahaadadana certificate-kuna waa bilaash bil walba aad heli karto haddii haddaba aynu isla eegno bishan iyo koorasyada aynu hayno bishan maanta aynu ku jirnaa waa April waa 2021 bishii afraad كورسك كوباد كوبحيا اللغة العربية وحمد عيسى الله يقانا خفايا مرحلة الحضانة من الميلاد وحتى ما دون 3 سنوات وحا كورسك الله تلقى أبياشا إيو يوينك عصب إيو ولمن الضدك هيستحضانوينك إيو كيتشيغا بربارية عرورتا كير صدح السنة وحا كورسك أتكبران دونتا قابك الله لدغم عرورتو مركا إيو كيريين صدح سنة sida loo barbaariyo iyo walibana dhaqamada xun sida looga biyo hadii ay yeeshaan marka aad linkiga ku dhufato kooraska halkan ayuu ku keeni doonaa halka ay ku qoran tahay iltahiq bil maada al'an ayaa aad ka sii gali doontaa kooraska labaad hadii ay noo galno ee ku baxaya luqadda carabiga waa kooras aad u muhiima aniguna aan ku tala jiro bishan inaan ka faa'iideysto waxa loo yaqaanaa takhasus al-excel min as-sifr ila al-ihtiraf waxa weeyaan barnaamijka loo yaqaano Microsoft Excel-ka ayaa lagu bilaabayaa adig iyadoo lagaaga bilaabayo from zero ilaa aad ka noqotid qof professional sida aynu la socono barnaamijka Excel-ku waxa uu ka mid yahay barnaamijyada ugu muhiimsan suuqa shaqada marka la joogo qof kasta CV-giisana waa barnaamij si aad ah kor ugu qaada marka aad linkiga ku dhufato halkan ayuu ku keeni doonaa minasada idraak ayaa laga bixinayaa kooraskan kooraskani waxa uu ka kooban yahay waa 6 kooras oo isku dhex jira mid waliba marka aad dhamayso ka kala ayaad u gudbaysaa 6daba hadii aad wada dhamaysato waxa ay bilaabmayaan 11 bisha afraad 2021 waxa ay soconayaan 30 week walba waxa lagaga baahan yahay 6 saacadood oo dadaala mustawahooguna waxa weeyaan waa mubtadi waxa loogu talagalay qof imika Excel ka bilaabaya marka la shaka noloshaada xirfadaha ugu muhiimsan ee aad baran doonto inta ay noloshaadu jirto waxa kamid ah barnaamijka Excel-ka marka qofkii luqadda carabiga fahansan waxa aan si aad ugu dhiirigelinayaa 30 week ee noloshiisa kamid ah hadii uu gaaro inuu ka faa'iideysto kooraska ugu dambeeya luqadda carabiga bishan isagna waa kooras aad u muhiim ah niyadana aan ku hayo inaan ka faa'iideysto waxa uu la xiriiraa waa IT-ga iyo computerka dabcan dadka bini'aadankii marka ay wada hadlayaan ay wada sheekaysanayaan waxa jira luqado ay isku fahmaan laakiin marka aynu la hadlayno ama aynu rabno inaynu amar siinayno la hadallo computerka isaga laftiisu waxa loo baahan yahay in aad barato luqadda uu fahmayo si aad amarka u siiso waxa la yiraahdaa marka waxa loo yaqaan programming language-ka waa in aad taqaano programming language-ka waxa ugu muhiimsan oo number 1 adduunyada kaga jirta ka loo yaqaan Python-ka bishan inta ay socoto April laga bilaabo bisha 5teeda ilaa 30 maalmood oo kaliya waxa aad ku baran doontaa from zero iyadoo lagaga bilaabayo Python-ka ilaa lagu gaarsiinayo heer sareeya shahaado rasmiyana aad qaadan doonto kooraska marka aad ku dhufato isla halkan ayuu ku keeni doonaa kadibna linkiga ayaad ka sii raacaysaa kooraskan haddaba sida ay sheegeen yaa loogu talagalay waxa la yiri qaabkii haddaba aynu u baran karnaa luqadda Python-ka ayaa sabaran kara miyay adag tahay mise way fududahay dhowr arrimood oo muhiim ah ayaa halkan lagu soo bandhigay oo tahay inaynu ogaano number 1 waxa la yiri programming doesn't need math background skills uma baahna in aad background u leedahay ama aad u taqaano xisaabta haddii aanad xisaabta aqoonin programming iyo xisaabta wax iskaga xiran ma jiraan waa aad baran karaysaa anyone can learn programming waxa la yiri qof kasta ayaa baran kara programming xataa kiliska iyo ciyaalka yaryar ayaa baran kara marka waxa la yiri programming language-ku
is waxa weeyaan waa like learning a new different human language waa adiga oo baranaya un luqad cusub oo ka mid ah luqadihii bini'aadanka oo kale marka waa muhiim waxa programmingku uu ka mid yahay xirfadaha loogu baahida badan yahay suuqa shaqada marka ay noqoto 10 sano ee soo socotana waxaa la filayaa in programmingku uu noqon doono shaqada koobaad ee adduunyada loo baahan doono haddaba koorskeena bishan soconaya ayaa loogu talagalay waxaa loogu talagalay qof no programming background qof weligii aanan programming ka baranin iyo qof took a programming course but have a weak skills qof bartay programming laakiin skillskiisa iyo xirfadiisu ay tahay mid liidata oo daciifa waa siday u badan yihiin maanta ardaydeena jaamacadda dhigta course programmingka ku saabsan ay qaataan laakiin qof garanaya kuma jiro programmingka ama way yar yihiin waxa kale oo loogu talagalay coursekan inuu qaato good programmer qof programmingka si fiican u yaqaan laakiin seeks refreshing concepts laakiin doonaya in uu xoogaa muraajaca uu sameeyo course-kaas waa course aad u muhiim ah marka aad linkiga soo raacdo hoosta waxa uu kugu qabanayaa dhammaan from day 0 laga bilaabo maalinka uu ku bilaabmayo ilaa maalinka ugu dambeysa manhajka aad qaadan doonto haddii aynu u gudubno xagga luqadda Englishka dabcan bil walba waxa ay noogu jirta luqad ama laba luqadood oo la baranayo oo welibana iska bilowa bishan waxaynu qaadanaynaa waa first step Korean luqadda Koreanka ayaynu ka qaadanaynaa the first step talaabadii koobaad kooraska marka aad soo gasho dad fara badan waxay soo weydiiyeen koorasyada ku baxa luqadda Englishka inta badan wuxuu ku sheegayaa shahaadadu in ay lacag tahay dabcan waa lacag laakiin waa qofkii lacagta awoodi karaya qofkii kalena halkan waxa kuugu qoran financial aid available waa laga caawinaya shahaadada in laga bixiyo sida shahaadada free loo codsadana muuqaal hore ayaan ka duubnay waa daawan karaysaa koorasku waxa uu bilaabmayaa 4 bisha April ilaa hadda waxa isdiiwaan galiyay 810,000 oo arday dadka badan kooraska ugu dambeeya bishan ee ku baxaya luqadda Englishka waxa loo yaqaanaa waa feminism and social justice طبعا sidaynu la socono bariyahan Soomaalida baraha bulshada waxa ka jirta dood aad u dheer oo ku saabsan doorka ragga iyo dumarku ay ku leeyihiin guryaha waxaad arkaysaa iyadoo oo laga doodayo yaa cuntada karinaya yaa soo shaqeynaya yaa guriga sii joogaya arrinkaasi dabcan doodahaas waxa ka dambeeya dhaqdhaqaaq caalami ah oo gaaladu sameysteen oo loo yaqaano feminism kooraskan haddaba waxa uu ku barayaa feminismka iyo taariikhdiisa iyo halkii ay ka bilaabantay waa kooraska aan isleeyahay maanta dhalinyarada Soomaaliyeed waa ka ay ugu baahida badan yihiin linkiga marka aad ku dhufato halkan ayuu ku keeni doonaa isaga laftiisa financial aid kuwa available shahaadada macnaha bilaash baa lagu siin karaa 66,670 arday ayaa ilaa hadda soo galay waxa uu ku sheegayaa in lagu siin doono a broad definition of feminism in si faahfaahsan aad u baran doonto dhaqdhaqaaqa feminismka ee u dooda xuquuqda dumarka iyadoo oo la eegayo 3 significant events in the history of feminism saddex dhacdo oo waaweyn oo hore u soo dhacay ayaa awoodda la saaraya dhacdada koobaad waxa weeyaan the Empire Zinc Strike of 1951 waa shaqo joojintii ay sameeyeen shaqaalihii loo yaqaan u shaqayn jiray shirkadii la oran jiray Empire Zinc qodobka labaad ama dhacdada labaad ee taariikhiga ee arrinkan la xiriira waxa weeyaan waa the 1971-72 trial of Angela Davis gabadhii la oran jiray Angela Davis maxkamadii la maxkamadeeyay 1917 iyo 1922 waxa ugu dambeysay awoodda saari doona koorasku Me Too movement dhaqdhaqaaqan imika cusub ee loo yaqaan Me Too qof dabcan dadka aadka u daawada wararku way garanayaan waagii uu si sharax jiray Donald Trump iyo ay aad u soo canbaxday gabdho la kufsaday oo Mareykanka iyo joogay marka dhaqdhaqaaq waxa soo baxay Me Too aniga laftayda waxa la igu sameeyay tacaddi ama xadgudub waxa la yiraahdaa 100% waa online course flexible deadline assignmentada lagu dirayo kuwiisada waa mid flexible waqtiyo kala duwan baad soo celinaysaa waa beginner level waxa loogu talagalay dadka beginnerka imika bilaabaya 8 saacadood oo kaliya kaaga baahan yahay inaad dhigato si aad u dhamayso Englishna waa lagu dhiganayaa subtitle-ka hoose hadda xataa English ka aqoon Arabic iyo French iyo Portuguese kolba kii aad garanayso ayaa hoosta kugu soo qormiyay turjumaada waxa la yiraahdaa Overhead by waxa bixinaysa University of California waa mid kamida jaamacadaha dunida ugu horeeya waa public research waa outstanding public research
University way. kooraskaas feminismku waxa uu bilaabmayaa bisha 4teeda ilaa bisha dhamaadkeega ayuu soconayaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. halkaas ayuu maanta muuqaalkan inoogu joogaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.